wuxuu haystaa jacayl iyo qadarin badan carabta iyo guud ahaan ummadda islaamka ah, taasoo u horseedaysa inuu isgarab istaago arrimaha ka jira wadamada carabta, waxaana ugu caansan taageerada uu siiyo Falastiin iyo Suuriya, taasoo aanan heli lahayn wax taageero ah la'aantiis. Waa kuma? Waa Erdogan. Magaciisa oo dhammaystiran waa Rajab Tayyip Erdogan. Wuxuu dhashay 26 Febraayo 1954 magaalada Istanbul ee Turkiga, wuxuuna kusoo barbaaray qoys faqiir ah. Mar TV-ga laga wareysanayay ayuu yiri, wax aan haysto ma jiraan markii laga reebo inaan iibiyo qaraha iyo doolshada si aan waalidkayga u caawiyo, waxbarashadana aan iskaga dhiibo. Erdogan wuxuu wax ka bartay dugsiga Imaam Al-Khatiib ee lagu barto culuumta diinta Islaamka ah. Kadib wuxuu ku takhasusay kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka ee loo yaqaan BA ee jaamacadda Marmar. Taas waxaa xigay, Erdogan wuxuu ahaa laacib kubadda cagta ah oo ka tirsan kooxda Qasim Pasha, waxaana la sheegaa in aabihii Sayid Axmed uu u diiday inuu ciyaaro kubadda cagta, asigoona ku tilmaamay inay tahay shaqo waqti lumis ah. Taas ayaa ku qasabtay Erdogan inuu ka tago ciyaarista kubadda cagta. 1976 ayuu si dhab ah u bilaabay shaqadiisa siyaasadeed, asigoona ku biiray xisbiga Khalaas al-Wadan. Nasiib daro, inqilaabkii Turkiga lagu qabsaday 1980 ayaa ka dhigay in la tirtiro dhammaan xisbiyada waddanka. Kadib waxaa sidii caadiga ahayd u soo laabtay ururadii siyaasadeed. 1983 Erdogan waxa uu ku soo laabtay ururadii siyaasadeed asigoo ku biiray xisbiga Rafaa ee magaalada Istanbul ka aasaasnaa. 1989 xisbiga Rafaa waxa uu ka qayb qaatay doorashooyin magaalada ah, taas oo ay ka soo hayeen guulo aad u fiican. Bilowgii sanadkii 1994 xisbul Rafaa waxay soo sharaxeen Erdogan si uu ugu tartamo jagada duqa magaalada Istanbul. Nasiib wanaag, Erdogan waxa uu ku guuleystay doorashadii, laakiin waxyar kadib waxaa lagu amray inuu iska casilo xilka cadaadis ugu imaanayay ciidanka milatariga. 1997 iyadoo lagu tuhmay inuu hurinayay nacayb xagga diimaha ah, taas oo keentay in lagu xukumo xabsi muddo 10 bil ah, waxaana u sii dheeraa in shaqada laga fariisiyo. 2002 wuxuu helay fursad si uu ugu biiro xisbiga Fadilah ulana midoobo xubnaha xisbigaas ka tirsan oo uu ka mid yahay Abdallah Gül si ay u aas-aasaan xisbiga Al-Cadaalah Wat-Tanmiya. Erdogan wuxuu bilaabay inuu naftiisa u huro si uu u sii wadi lahaa musalsalka xisbiyadeed iyo fikradiisii ku taagneed qaab dhaqanka diinta Islaamka ah, arrintaas oo ka careysiisay ururadii cilmaaniyiinta ahaa marba markii kasii dambeysa. Kadib xisbiga Al-Cadaalah Wat-Tanmiya ayaa si cad u sheegay inuu xifdin doono aas-aaska nidaamka jamhuuriga iyo ahdaaftii uu dejiyay Ataturki. Taas waxa ay keentay inay aaminaan 99% shacabka Turkiga. 2002 wuxuu helay codad aad u badan si uu ugu guuleysto ra'iisul wasaaraha Turkiga, balse ma awoodin inuu xilkaasi qabto, oo waxa uu socday muddadii 10 bil ahayd ee lagu xukumay. Kadib waxa uu dhamaaday muddadii xabsiga. 2003 Maars ayuu la wareegay xilka ra'iisul wasaarenimo, halkaasna waxaa kasii socday guulihii xisbiga Al-Cadaalah Wat-Tanmiya
ee codadka baarlamaanka 2007 2011. muddadaas dhan waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga. Erdogan intii uu hayay xilka ra'iisul wasaarenimo waxa uu horseeday Turkiga amni iyo xasilooni siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid bulshaba. Turkiga waxay kaga jirtay kaalinta 111 wadamada ugu dhaqaalaha badan dunida, balse Erdogan muddadii uu xilka hayay Turkiga waxay soo gashay kaalinta 16aad wadamada ugu dhaqaalaha badan dunida ee loo yaqaano G20. sidoo kale waxa uu la heshiiyey wadamo ay ka mid yihiin Armenia, taas oo colaad dheer ah oo taariikhi ah ka dhaxaysay labada wadan. sidoo kale Giriiga waxaanu furay buundooyin u dhaxeeya Turkiya iyo Azerbaijan iyo wadamo kale ee Jamhuuriyadda Suufiya ka tirsanaa jiray. sidoo kale wuxuu caawiyey Suuriya iyo Falastiin. xuduudahana wuxuu u furay dowlado badan oo Carab ah. sidoo kalena wuxuu u oggolaaday inay ku soo gali karaan wadanka Turkiga fiisa la'aan, taas oo ka dhigtay magaalada Istanbul inay noqoto caasimadda ilbaxa Yurub sanadii 2009. wuxuu la wareegay Erdogan xilka madaxweynenimo 2014, wuxuuna noqday madaxweynihii Turkiga ee ugu horeeyay ee loo doorto qaabka doorashada loo yaqaano elektarooniga. wuxuuna ku guuleystay wareegii koowaad ee doorashada, asiguna kaga adkaaday dadkii la tartamayay, kuna kalsoon shacabkiisa aan marnaba isbedelin. 15 Julaayo 2016 waxaa dhacay arrin la sheego inay ahayd inqilaab caskari ah, kaas oo ay soo agaasimeen qolo ka mid ah ciidamada Turkiga. sida ay qorsheynayeenna waxay ahayd in la dilo madaxweynaha Turkiga iyo inay la wareegaan hoggaanka Turkiga. laakiin ma dhicin arrinkaas, oo waxay dhammaan iclaamiyeen siyaasiyiinta, xitaa xisbiyadii mucaaradka ee cilmaaniyiinta ahaa, in ay dhammaanba diideen inqilaabkani. ilbiriqsiyadii ugu horeeyay inqilaabka wuxuu Erdogan ka soo muuqday si toos ah FaceTime-ka si uu ugu dalbado shacabkiisa inay ka hortagaan inqilaabka. isla markiiba waxaa wadooyinka isi soo dhoobay malaayiin shacab ah si ay uga qayb qaataan inay ka hortagaan inqilaabkii dhicisoobay, kaas oo aan dhaafin 8 saacadood. wuxuuna Erdogan xaqiiqsaday arrinkaas in ay shacabka doorteen jacayl ay u qabaan asiga iyo go'aamadiisa.